السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسدوات أنا بقى آمنة ما أنتو حنكاد لنا حريرك لما نهقف مركا ugu horeysa isbaranayaan barashada waxa weeyaan qofka bilaadanka marka baranayso markaba waxa weeyaan kalgacaylka baa leeyahay waxa weeyaan waa qacda ugu horeysa waxa weeyaan kan marka aragto maalinta ugu horeysa waxa laga yaabaa inaad wallahi ku qanaciyado wallahi inaka waan jeclaaday inakuna waa caynkaas hadaba waxa weeyaan xiriirkii marka labada maalinta horeysa ka dib labada qof xiriir wada hadal ay sameeyaan xiriirku u dheeraanaya imka waxa dalka adduunyada imka ta joogta inta inaan ku oranaysa 3 sano la socday 2 sano la socday 4 sano la socday kadibna xiriirkii lagu kala harayo taana waxa keenay maanta waxaan doonaynaa in ka wada hadalno أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرلبات الحمد لله channelka subscribe ti like taba ay saara comment kuna waa noo bixin ii share kale waa videoga markuu soo garay daawato like tana noo saaro aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa marka waxaan leeyahay marka uu horeysayna inaan keenan la hadlayaa aad isbarataan barashada waxa weeyaan waxa ay manasade silsilada baadib laabmasa labadii qof isbartaan oo sheekaystaan hadaba waxa weeyaan qofka bilaadanka labada dhinaba marka labadiina bay noqoto qofka waxayna ka aragto alihiisa ma ku xiran yahay barashada u horeysan ku hadlayna ta dheer 3 sano soconaysa kama hadlayno marka aad aragtayna kaasina ku qadciyeen horta qof ilaahiisa ku xiran yahay qof muxuu yahay akhlaaq loo yahay qof dantiisa ama uu shaqadu haysta shaqaysanay ama dad shaqa sugaba oo yahay arkaysa qof kartileena uu shaqaysanayo wixii kala ka doontaa horta waa khalad weeyaan waxa weeyaan mar hadaad saddexda kale ku aragto wax kale oo ka baranaysaa ma jirto waayo dad tira sii soco oo waynu wada hadlaynaa oo waynu wada isbaranaynaa taabeen baad la isku wada sheegaa kulligeen marka waxa weeyaan waxba hadaad saddexda sifood oo kugu isku qancisaan inantaas ay kugu qanciso inankuna maxay hay inankaas uu kugu qanciyo wax kale ha ka diiday waxa weeyaan guurka ilaahay baa baneeyay oo wax ilaahay sunnatul hayaa ilaahay baa inoo soo rogay marka waxa weeyaan ilaahay isku xidh oo inanka hadad inta ku aragto waxba wax kale ka sii oran waan ku sii baranayaa waxa doonaysa iska sii bartaan iska sii eego taas waxa weeyaan ta xiriirka baaba hadii goor marka ku wada dhacda dhalinyarada marka waa inaad inta marka aad laba saddexda ku aragtayna waa inaad ilaahay iska tawakalata oo inanka aad la soo gabagabaysaa muxuu ahaayay hadii uu guur ku soo bandhigto weeyaa ta saddexaad waxa weeyaan waa in hadaa tirahdo waan baranayaa sidee baad isu baran waxa weeyaan isagu habeen kastood kula hadlaya ma markastood kulantaan wiisa soo geejiyaa wiisa soo hagaajiyaa hadalada inta macaan ayuu kula yimaada mar waladooda hadashaan adigu hadaad inan tahayna waa sida ay ka daalig waa soo geejisaa waa soo hagaajisaa hadalada inta ugu quruxda badan ayaad la imanaysaa mar walba marka waxa weeyaan hadaad sanad la socotaan iyo hadaad laba la socotaanba intaas ay la isula yimaada wax kale la isula yimaada ma jiro waqtiguna halkaas ku baabaa marka dambana waa qof waliba qofka kale oo ka xiisa dhaca waxa laga yaabaa inta 2 sano baraleeda 3 sano baraleedahay inuu ka baxaysa dhaco ama aad ka baxaysa dhacdo oo nolol kale iyo xiriir kale aad samayso hadaba waxa weeyaan xiriirada faraha badan ma wanaagsana waxa weeyaan marka waxaan kula talin lahaa inanka hadaad saddexdaas sifood ku aragto inaad iska guursato ilaahay tawakalato waayo guurka ilaahay baa baneeyay ilaahay baa barakeeyay marka dambe waxa uu iska caqabada badan yahay laakiin hadaad caqabadaha inta hore weeyaan ee la isku cusubiyay sanadka hore 2 sano hadii ay isu dulqaataan oo isu samirtaan faa'iidadeeda ayaad helaysaan waxa weeyaan ilaahay baa isku kiin kaalmeynaya ilaahay baa isku kiin barakeynaya awlaad ayaa imanaysa meesha nin wala awlaadina quruxda badan marka arkaysan insha Allah marka dambe waa ku liibaanaysaan marka waxaan leeyahay anigu hadaa tiin inan iyo inanba xiriirkaasi fogeynina xiriirka iska soo gaabiya sidoo ilaahayna idinku kaalmeeyo idinku barakeeyo waqtigan aad ka faa'iideysataan aad isuna samirtaan intaasaan idinku soo koobaya waxaan leeyahay channelka subscribe insha Allah موضوعية فربضان كلنا وين كسو هادلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.